baahnaa dhar aroosoo qaac cusub loo tiro diyaara mise dooqayga ayaan dalban karaa labadaba waad helaysaa walaale nashqado badan baa yaalla oo aroosada keliya loogu talagalay horena aan loo qaadan dooqaaga waad kala dhex bixi kardhaa bolitus kuwii lagu ciidaynayay u ekaan ma kula tahay dharkii ciidka inay maantoo kale soo gaarahayaan nashqadii aroosada waa kuwana dooqaaga ka ciyaar haa walaale isku fiiri isagoo midabo kalehana waan kuu haynaa geesahaa bay yaallaan gabdhaha dukaanka gadahaaya ayaa ku tusahaya ikraan dadku caawa xoog way badan yihiin sidii ciiddii malaa xafladiyo aroosiyaa jira magaaladan toosan dumarkooda ma istiri waa u ciidii aroos toddobaad walba xagaagiina waa la gala soo ma ogid edhe waxaad yeeshaa tuugtayay dadkaynoo soo dhex raacin indhahaagu ha furnaadaan lacagaha kaashkaa naga huba been abuurka iyo kuwooga dilaacsan maradan baan rabaa in caawaba la ii talo oo layga talo nashqadaadoo kale walaale waan kuu toli karnaa laakiin caawa ha dhihin haddaad 2 maalin ka hor noo iman lahayd waan toli karnay kuwan talanba ma mid ka dooratid walaa fadlan noo dedejiya caawa lacag dheeri ah baan bixinayaa sidaa waa nugu degdeg adna wax wanaagsan ma helaysid waxaa yaalla dukaanka 10 nashqadood wax ka badan shaqaalaha ku tusaan aad waxaan hubaa kuwaad xaflad iyo aroosba ku tagto inaad ka heli doonto walaal cabbaayadan iga iibi anigana si weyn baad dharka nashqadihiisa u kala taqaanaa cabbaayaddu waa $45 cirkaabaad geysan qiimaha xafladaha xagaaga dhacaaya iyo aroosada ayaan kuwan ugu talagalay bal adiga $2 la har wiilka dhinacaaga fadhiya u gee lacagta rasiidkana ka qaado 10kii nashqadood aad ii sheegtay baan midkaad xidhan tahay oo kale ka soo helay ii qiime waa kaa macmiisha horaan ugu dadaalay dooqooga inaanay ka waayin dukaankan waa mahadsan tahay walaalle wiilkaa ugee asagaa kuu sheegahaya qiimahee walaal waxaan u malaynaya inaan soo dahay cabbaayadii ugu wanaagsanaana la iibsaday u malayn maayo taasi inay dhici kadho waa layga soo hormaray oo la kala xushay nashqadii ugu fiicnaa soo maaha waad garanahaysaa dukaanka mar walba in laga helaayo noocyada nashqadaha oo dhan dumarka magaalka oo dhan hadday yimaadaan dooqooga ka waayi maayaan si fiican walaale dukaanka u dhex gal cabbaayadan iyo tookama way qurux badan yihiin iga iibi saa iga dheh waxaaban ka baqahaaye inaad xaafaddii kula laabato ikraan bilo dharkii xafladaha waaba ka soo waayey taa hadda may dhicine baliishaa qiimaha wiilkaa khasnajiga aad adigoo mahadsan ikraanay dhowr dumara baa dalbanayo toobiyo cabbaayadaha aroos ma ka qabanaa dalabka haa see weeye weydii tirada iyo wakhtiga ay doonahayaan inay helaan waan kuu soo diraya la heshiin adigaba dalabka ka qor ii soo dir markaa gabdhaha shaqaalahaana weydii ayakana dalab hadday hayaan naa meesha ka kac hurdada ka toos ka kac maryanay hee waar maxaad la qaylinaysaa waaguma ma beryini bisinkee naa meesha ka kac waa 6dii aroornimee toosi carruurta oo shaah dabka u saar waarniyoo carruurta ha nugu toosinin maxaad u haysaa carruurta ee aad u toosinaysaa dayrun baad ka hadlaysaa yaa carruurta u maydh yaan lagula yaabine oo ka kac meesha maryanay alla cabdiyow maxaad isyaal yeeshaa runta maad ka hadashid maryanay bal horta ka kac oo aqalka inaga hagaajiyaan sidan lagugu imanay idinoo iman maysee gurigana hoostaan ka xidhanaynaaye adigu ma tegi kartaa ha nagu dul meeraysanne annagaa wax aragnay sheekadaadu waxaabay maraysaa ka daroo dibi dhal sidani nolol maaha cabdiyow miyaanad waxba maqlayn waa la hagaajinayaaye socodee malaha adigaaba saaka hadal doonaye hadal dooni maaye adigaa doonaya inaad igu kallifto waxaanan karayn kolba sidii loo jaba ayaa loo dhitiyaaye iga daacanaadka anigu biil baan ku weydiiyey sow xaq kuguma lihin aniga iyo carruurtu hadda uun baan ka soo yaro kabtay dhaawacii gacantee biilka aan raadiye adugu ila shaqe oo i fahan adigaa u baahan inaad na fahanto aniga iyo carruurtaba oo imika idinma fahamsani miyaa haddaad na fahmayso ma sidanaan nuu ekaan layn haddaad dhimanaysana dhereerka waa layska duwaabaa la yidhi adugu maryanay miyaad qumantay horta saaka macanaad baad la toostay waan tashan doonaaye bal horta guriga nadaafaddii iyo udgoonkii lagu yaqaanay ha laga arko kumaan fahmine waan tashan doonaa maxaad uga jeeddaa naa waxaan uga jeedaa xal baynu wada gaadhiye dhankaaga bal dadaal wixii aad karaysana qabo raalle ahow haddaba waxbaan soo gocday adigoo tamartayda og waxbaha iga shakiyina waynu heshiine reerkeenna bal u deg oo maryantaadii noqo insha allah anigu maryantaan ahaa iyo mid ka sii fiicanba waan noqon karaa cabdiyow waa sidaannu annagiiyo carruurtuba doonaynee gurigeenna ha laga garto udgoonkii iyo carfigii oo nuuraddan iyo rinjigan bal waxaynagaga shid baloradoo iminka baxoo carruurtu waxay ku qadeeyaan u keen waayahay adiguna aqalka udgoon u yaal udgoonkanaad kolba ka hadlayso markaad soo socoto ma noo soo iibin kartaa assalaamu calaykum ikraan aabbo socodkaaga leesaan u kasay wacalaykum wasalaam aabbow ciiddii ka wara soo dhagdhag kuumay ahayn ciid maa meel aniga iga jirto markaad adigii timaadaba aniga ciiddayda lahawaa waa runta aabbow mashquul baan noqday waaban kula ciidi lahaa aad aan kaaga mahad celinaa gabartaydii saafi iidana waa fiican tahay ma aho aabbo saafi aad bay u fiican tahay telefoonka inay kaa soo salaantay ahayd laakiin dhib male aabbo anaa salaan kaa gaarsiin
iskana sabir aabbo mar walbo aad gurigan timaaddo qolkan waa isku dhex daadsan yahay mushkilad ma ahan anaa kuu firaashahaya oday keligii nool xaalkiisu waa iska sidan aabbo hedha aabba horta halkan ma dad baa kuugu yimaada maya qof aan adiga ahayn aabba aniga maya timaado bal nolosha noocaa ka warran aabba adoo qof weyn ah oo haddana keligaa guri ku nool bal qiyaas noloshaadu sidee bay noqonaysaa baad u malaynaysaa sida maryaha kan ayaan dhaqid u baahnaan lahaa kelinimadu wax fiican maaha hedha aabbow waxaan kugu ballaminahayaa doobilaha asagaa ku imanaya toddobaadkii 2 goor u dhiib dharka wasakhda kaa noqda lacagta adaa bixinaya maaho adiga shaqo kuma lihid u tiri u dhiib keliya maanta waa ii soo diri kartaa teleefonkayga si aan u sugo haddeeraan sii marayaa telefoonkaagana waan siinahaya igraanay aabbo baarri aad tahay waan kuu duceeyaa mar kasta ka waran dharkii iyo kabihii ciidda si fiican ma uga ciidday maashaa allah ilaahay ha ku barakeeya aabbo kabahan macawistan shaarkan cimaamadda waxay ahaayeen kuwii ugu qaalisanaa jidka waa mari ayaan ku dhahay aabbo see weeye aabbo dadka inaad ka muuqato soo ma ahan tan kuugu soo gadayba odayaasha xaafadda qaar ah i dhahay waa kuu gaartay gabartaadaa wax kuu baratay dukaanna kuu leh odayaashaas inaad ka sarraysaa baan rabaa see weeye aabbo ooy ogaadaan inaad dhashay gabar kaa fikiraysa qaarkood waxayba dhahayeen ilaahuw gabartu warsamoo kalena sii anna waaban ku tala galay aabboy maalinkaa ciidda inaad odayaasha ugu shidhnaato qaar suldaanay ii maleeyeen qaar maalqabeen masaajidka u yimid inuu ku dukaday ii maleeyeen horta aabbo horta sida jaamac ma u ciidda aniga intaa laygu filane allaahu akbar maantay ugu darneed sheekaan ku hayaa sheeko waa baxay waxaan isdhahay masaajidkan agtaada ay ku soo duko salaaddii aan iska xirtay show ninkii jaamac dhinacaygu ku dukanaa anigana ma arko salaaddii markaan dhammaystaa waxaan soo jeestay salaamo naqsigii ninkii jaamac ahaayoo sidaasun anigii dayay hay fiiriyo indhaha igu caddeeyo jaamac waa ka sugaayey ma anaa u joojinaya aab horaanna ka soo baxay oo ma ninka aad u shaqaynahaysa amaba ku garan waaya adiga aniga maa salaantii ciiddii xitaa ka qaaday aab birtalaan ugu dhufto birta si kale kuma taqaanida hedha aabbo waa sax ha ku garan waaya jaamac beri buu ku dhihi doonaa ninkan ciidda isla tukanayna hodha ma adigu ahaa laakiin igraanay aabbo hooyadaas salaantii ciiddii xitaa ma ka helin saas maxaa waaye aabbow hooyadii warkeeda iska dhaafo oo lacagtan meelaha shaah kaga cab duco qabto waa mahadsan tahay aabbo laakiin aabbo hooyadaa aniga rajo ma ka qabi kari miya caliyow waa maxay gawaadhi yaraantu cabdiyow malaha innagaa soo kalahnay waar maynu lugayno mar horaynu shaqadii gaadhi lahayn balayn daqiiqadaan dhowrno waa intaasoo gaadhi shaqadii toos inoo geeya aynu hellaaye anigu lugtaabaan door bidi lahaa maynu lugayna saaxib danba waynu lugayne waxaan ku odhi niyow imikaunbaad horta nin rageed tahay waar maxaad ka warramaysaan waxaan kugu hambalaynayaa inaad gabadhii waddada ka kicisay war gabadhii hore maaha fadhigii waaba uga daray maya go'aan geesnimana ayaad qaadatay waxaan ka wadaa sidii horaa sidan u dhaantay fadhigii iminka canaad iyo dhibun bay ku baratay waar ha kuu fadhida guriga qayrkeedba gurigu fadhiyahay dee anigaba waad idhaafsan tahay gabadhun yay kaaga dhegine horta aniga i dhegayso dee go'aankii ugu saxsanaa ayaad qaadatay sawniga ku leh dee anna waxaan ku leeyahay gabadhu gurigii way ku dhex baahday shaxshaxdii hore ma jirto carruurtii madarisadda ma geyso wax kale iska dhaafe carraftii gurigii layguma roona waar calool jilicsanida way iskala qabsanaysaay carruurteedaa dhex fadhido war gabadhani waa jacaylkaygii kowdhe inay niyad jabtana uma ogoli markaa warkan saaxiib ila dhaaf gabadhani dibad fadhayay baratay mooyaane mushkilad kale ma jirto ee haddii aad tala rabto biilka unu qiyaas si ayna wax kaleba uga fikirin oo biilka awalba sidee odhan jirtay waar niyow taloxumadii afxumaad ku darsatay oo hadday khudraddii ku noqoto soo adna dhibaatadii joogto kuuma aha caliyow marka horeba adigunbaa iwaalayey oo hinaasahaagii ila soo galay show adiga gabadha ku cisaniyo waabay helu janno waar aniga ma waxaad moodaysaa inaan sidaadoo kale ahay oo miyaad anigoo kala noqon kartaaba adiga ninkii kula tashaday wuu jabay maystiri hooye ma liqday dawadii mise waad sadhigtay sidii shalay bal iidhii biyaha ah waa maxay faysalow xilliganaad soo toostay meeluunbaa loo baxaayoo loo arsaaqa tagaaye ma hurdaa wax ku taraysa hooye waxba ma ahayd xuun baan raadin waad og tahay faysalow xaaladda yaasmiin aad bay u niyad jabsan tahay waan ogahay hooye khasaaraha ku dhacay baa ku sababaya inay murugooto wayse ka soo kaban doontaa insha allah aad bay u wanaagsanayd saaka waanay doondoon tagtay bal inay hesho wax shaqo ah iyo in kale oo hooye kolkaa xalkeebay u shaqo tegi ileen waa qof meherad ay leedahay u barataye
sow ganacsigeedii kamuu kicin miyay raadsan balahay ciday u shaqayso raashin yar baa inoo yaallee u sheeg hodan oo inoo tashiila hooye waxaan islahaa aad u sheegtid bee hodan waxay u qaadatay in shaqaale guri laga dhiganayo shaqaale guriya ma iyadaa sidaa u fikirtay sow ma ogid hadday maqasho yaasmiin inay ka xumaanayso hooye waan isku dayay inaan fahansiiye inayna cidina shaqaale ka dhiganayna way iga madax adagtay hooyo u caqli celi oo fahamsii halka iyo xaaladdeenu marayso yaasmiintii wax walba inoo qabanaysayna waad aragtaa arrinkeedii waan ka dhaadhiciyey hooye in marka aynu lacag hele loo qaban doono inan shaqaalaha inta ka horaysana ay isaga samirto haddii uu dhaqaalaheennu isbeddelo wax badan baa loo qaban sidii ay yaasmiin horeba ugu qabatay waxaanoo hayinimaa iska daayo xaaskaaga wax fahamsii oo u sheeg inaan wax shaqaalaana la qabanayn hayinnimadu waa maxay hooyo damayaba odhan kari maysid xaaskaaga waxay kuu sheegtana hadalba ka soo celin maysid hooye dahabkaagii fargallama ka soo hadhay intaan iibinno sidaan shaqo yaro ganacsiga aan uga samayn karo waa iyo qofka soo furay albaabka yaasmiin maadigiiba alxamdulilah haddaad soo nabad noqotaye soo gal hooyo maxaa daaradda ku soo fadhiisiiyey cadceeduna waa yar kulushay maantay goor dhowayd baan soo fadhiistaye faysalle wuu tegey hodanna qolkeeday ku jirtaa malaa way huridaa hooyo barqaseexadkan anigu uma bogin anigu dhaqankan ma jeclaysanay hodan noola timi hooyo dulqaadkaagii inaad soo celiso ayaa lagaaga baahan yahay waa iska inan yar hodane faysalle wuu la hadli xaaskiisii dulqaadiguma yara hooyo ee waa ogtihiin xaalkeennu halkuu maraayo midda kale xilligani ma xilli qof aayar iska jiibsadaaba hooyo way cabanaysoo faysal baa ii sheegay inay u fahantay inaynu shaqaale guri ka dhiganayno waa saan u sheegay inaan wax shaqaale ah la qabanayn ma waxaasuu intuu ka soo dhegaystay buu adiga kuula yimi wallee wax kalena way soo socdaan hooyo sidaa maahee wuu u caqli celin doonaa ta kale sawdiga yaqaana inay dhallinyaradu iska hawla badan yihiin yaraan maaha hooyo gabadh kastoon la guursada iyadaa shaqaysa ma qof ha lay shaqeeyo ku cawdaad aragta waa iska dhallinyaranimada yaasmiinee ninkeeduba wuu u shaqo tegi saa kale wuxuu u baxay raadsi waxaan siiyey maxaa tiisuu shaqo ku helaya waxaan siiyey fargalkii u dambeeyey dahabkayga si uu u iibiyo oo ugu samaysta ganacsi yar hadday u gaadho alle hooyo maxaad igu dhiibtay isaga muxuu suuqa ka yaqaanaa faysal bile lacag yar laga siista hooyo iska daa yaasmiin warwarka wuu soo iibin doonaaye maya hooyo wax jaban baa laga siisanayaa oo dahabka qiimihiisa aqoonu ma laha telefoonkiina ma qabanayo iska daa warwarkoo qaba telefoonka waa kan kugu soo celiyey malaha isaga ma aha waa gabadh macmiile ahaan jirtay bal qabo talow maxay kaa doonaysaa hooyo ilaahow khayr ka dhig ma lacag bay nagu lahay halow waa nabada iska warran walaal waa si fiican waan ku gartay hooyaan la joogaaye goormaynu kulannaa xaggee baynu se ku kulannaa